the purpose of life? nolosha tan maxay tahay danta laga leeyay waxaynu u joognaa halkan maxay tahay rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba waynu ku qiimaysanno fawska ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay kullu nafsin daa'iqatu lmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلهي قرآن كوحولي نف ولبوي جيريونسا نلشو تنلشوغا وحسيس عنا يماه مهما كان لديك من مال وسلطة ونعمة ويتقي سبالي wax kastoo agtaada yaalla nooc kastaba uu yahay waad ka tegaysaa waad geeriyoonaysaa baa lagu tilmaamay wainnamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama waxaa laydin dhammaystirayaa waxaa shaqaysateen baa ilaahay leeyahy maalinta qiyaamaha adduunka haddii wax lagaa siiyo waa dhadhansiin waa lagu dhadhansiiyey wax weyn maaha laakiin wixii aad shaqaysatay cimrigaaga aad ku bixisay insaanku ra'su maalihi waa sanawaadkuu nool yahay wixii aad shaqaysatay waxaa lagu oofinayaa lagu dhammaystirayaa aakhira baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala yowma alqiyaama sidaa awgeed waxaa lagu xidhayba miisaanku inuu labadan eray yahay faman zuxzixa can الnaar waudkhila aljanna faqad faaz ninkii naarta laga dhufto ee naarta la weydaariyo ee janno la geliyaa kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala guusha dhabtaa qofka gaadhay waa qofka kan markaas aayadda ilaahay haddana wuxuu ku gebagabeeyey wama alxayaatu اddunyaa ilaa mataacu اlguruur nolosha adduunna ma aha mid kadsani waxuu bedhbidhsado mooyaane yacni nolosha adduunyo waa mataac laakiin yay mataacu tahay ilmaqruur ku la kadiyey ku aan caqliga si fiican u isticmaalin baa tan naf mooda walidaalika ayuha alikhwa kow markaynu wax qiimaynayno waxaynu leenahay the whole life aan eegno noloshoo dhan adduunku waa qayb yaroo ka mida noloshaada maraaxil bay noloshaadu maraysaa maraad caloosha hooyadaa ku jirtay maraad yareedoo soo koraysay maraad geeriyootay maraad xabaal ku jirto mar lagu soo saaro lagu xisaabiyo iyo dayn halkay ku gebagaboobaysoo ah laba meeloodoo bini aadamka loo qaybinayo meesha aad ka tegayso ma jannaad aadaysaa mise naar baad aadaysaa waa inaynu fahnaa markaa noloshan aynu joogno maxay macno samaysaa qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa noloshan inay tahay imtixaan waa mowducu ibtilaa wax kasta oo nolosha intaad joogto kugu soo baxaana waa su'aal jawaabteeda la sugaya waxaad ku qorto whatsoever haddaad caafimaad qabto waa su'aal haddaad xanuunsanayso waa su'aal haddaad xoola haysato waa su'aal haddaad faqri ku jirto waa su'aal whatsoever wax kasta oo nolosha kula kulma waa beyj nolosha ka mid ah laakiin ah imtixaan xagga rabbi ka yimid oo la eegaya waxaad kaga jawaabto mid walibana jawaab bay leedahay